madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa martiqaaday weriyayaal ka tirsan joornaalka caalamiga The Guardian si ay waraysi ula yeeshaan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta federaalka Mukhtaar Roobo Cali Abuu Mansuur. Sida laga soo xigtay Xasan Sheekh, qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya kuma jirto in uu hub siiso Abuu Mansuur si uu furimaha dagaalka ugu wajaho maleeshiyaadka gacansaarka la leh Al-Qaacida. Hub ma siinayno mana ka codsanayno in uu dagaalamo, balse waxa uu noqon karaa mid waxtar leh oo aan adeegsan karno, ayuu Xasan Sheekh ku yiri waraysi uu siiyey isla majalladan laga leeyahay dalka Ingiriiska. Roobo ayaa kaalintiisa xukuumadda wuxuu ku sheegay furinta dhanka fikirka. Maamulka Xasan Sheekh ayaa ku dhawaaqay dagaal dhanka militariga, dhaqaalaha iyo caqiiqada oo ka dhan ah Al-Shabaab. Tani ayaa ka dhigan in Abuu Mansuur uu hogaamin doono duulaanka dhanka dacayadaha warbaahinta ee dowladda. Toddobaadkan wuxuu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku wareejiyey